نيو ولا فهمي كراباش هذا آموس قوين آموس كلجين هالمر كلجين آموس بلاي اللي يقول عليه آموس دق الفضيلة بقبتها دق نجا المود هل مشكلة هلا مود مليون ربلا هذه مود قال دق المود مشكلة هلا مود نجا مليون ولا الهرت مود قال مشكلة هلا مود قال مليون مود قال مليون مود شكيرا قال هلا مود قال وحن حتى والد بدن يا إيش مليون واي مود قليسا باك الله يا بليز شكيرا هالمر إلى هذا البامي مغشاه وانكم مغلها قرحة حبيبتي ميغ ما هنا والرأي ناقان كوارن الرأي اللي صراف سنة يسد وحو أكتها وح ميغ مجرو نا ماغ ما هذا مليون وقوله ماغ ما لكن قفل بمك رأيي سنة رأيي اسكو درسنينا قفك رأيي سديبتن وآموسيا exactly برك waxay tiri degan raggaan u hadlayaa bay tiri degan inanta rag hawaash ama siir أنا هلا ولا الوحير آموس أباي am your queen آموس please آموس أبايو horta aan isfahanno دقن آموس سكير كده ما جكن فرد بدري ده سكير مليون horta ii gafin horta fideedkay meel kuma arkinay مليون no hal gabar hadee hadasho jawaabtana siina taariikh fadhiya meesha naga آموس waxaan في سعود بلا بالشيدار جين هرشيدار عابد عادي واي والله عود بلاسن حاله عود بلاسن شكيرا aan ka dhamaada meeg wala siina dadka آموس bal horta bal آموس mood مليون ربنا هلا ii madarta آموس horta hal mar moodka no no ما يصيح لا دقني آموس bal degane moodka isbar wax yar aan Shakira aan ka dhamaado آموس wax yar haye adi gabara ka soo horeys مليون mood gal gabara kala أرجع ولا ما ديبن هذا ولا واي قبل ولا سينا آموس ولا بس دقني هذا ولا المراديو باتي كل جوا قاعدين يصير لكن بالمود كتابورت شكر معنا دقني مود حدا عم تخالد مي أباي ما تقوى الربادية بلايا النحصار أوكي سوق مركز شكيرو قفل برأيي سال لقى دقي سنة رأيي سوق قد بنا يا قفل بوح لقى فائدة كرا لقى فائدة وحماغ ماشى اللي سعادة مجرو مرحلة جفتون بالغ هلا يا قبل أنا كسرته دقنا مود هاك شد مود قال إنه وقلد وحين ماشي مع قفك إلا لهذا وإنه مود قشام قف كان لا قف كلا دقنا مود قال مليون ربلاي قلكaaga ma saarin horta marka koowaad ogow alla degane ceeb way cidnis ma dagaalis deg shaytaan isna mood gal maya ani xaliima degane dagaalama jiro walaal bilis degan ana qofkayga la isma dagaal degan waxa si walaal degan waynu wada qaadan ana qofkayga la isma dagaal degan meesh waa la isku wal kula baashaal weeyay waxan waxa weeyaan kaftan weeyaan xifaaltan weeyaan walaal jiraan nolol baynu ka wada hadlay maya xifaaltan ma xataa waa wax run ah oo jiro oo waa waxa weeyaan wada hadal jiro waay ra'yi la isxaabsanayna meesha degan qalad la ifanta ma hadna qolkaaga deganay huuno مليون يمود كالبليس ما حد لكرا ليدنا ويتي أنا هالكن سي سارنادا دي كوما قسبني hablaha Soomaaliyeed oo midyarisan sheeko horta walaalo adigu hadaad ku qanacsantay gurigaad ku jirto wax weyn hablaha dhan kuma wada qanacsana naanima qiimo badan oo qurux badan oo na soo doontay oo wanaag iyo sharaf leh ayaanu saas intaanu feerinay ka dhaqaaqnay maantana personally anuu gabdhaha Soomaaliyeed u hadlaynin aan leeyahay kagama celin doono aniga kii aan jeclaaday ee quruxda badnaa ee qiimaha badnaa ee ilaa iyo maantana aan xishmad u hayo aana kaga daba noqonaynin inaan ilmo dambe ka daba dhalo wax weeyaan gabadha Soomaaliyeed hal mar bay istijaabisaa 2023 baa lagu jira Soomaaliya halkeenu ka nimi nawana la xumeeyaa waana la caaya waana la duuba mootadii ku dhashay xaddi ku dhasho ku garacata baalkii Afrika qofka igu qoranta mar dambe qoraal ii soo qorta ab ii qolkayga laga maxay tama degan maxaa ku dhacay waarkeyga caynaya kumitiga ma celisid wala blogya bas ceeb ana qolkayga cay ma ka ogol viral ilahay marka maxaa waarkeyga qawra ku jira cayna sheedan kastana rabaystaji a'uudu billahi staji ana bloga ii sheeg bas kamanka huuna ha fiirin ceeb weeyaan weligii qofkii kelmadda aad laga maran waxaan ku jiraa 5 bilood baan ku jiraa weligii qof kelmad cayay kama oran qolkayga ana cayda waa nacbahay commentiga dadka jooga reer aakhiraadka dadka qawra waarkeyga fiir adiga deganay aniga cay ma ogon walaalo qofkan cayda soo qoradna blogaaga qaado magaciis maxaa ugu qoran shakiray walaalo aan mid ku sheego social media joognaa walaalo is okay wala is caaya kama may aniga cay ma ogon walaalo social media aniga who cares qolkayga laga macaytamo en Shakira ma maxaa ugu qornaya blog Bensibela ma blogtid qofka ani ma garanay ma arkay muxuu yahay wax maxaa ugu qoran ku soco
هذا ما مثلا أركو بين والله social media African كسر ego ناس uu qoran baa ku African ego taagannahay هذا كوسع وركاga iska wada gabe walaalo anu kaman ma akhrinayo laakiin waxaan indhahayaa flower iyo indha la iska xidho iyo la isa soo dhaweeyo iyo shumis iyo balaayo naagtii sugaysaa naanu naagaan la shaqeeyaa nimankooda taraagiyo saaran yihiin waxaan ku dhahay nolol ku nool yihiin lacag sameeyaan nimankan giftiga maalin kasta soo dira idin dhex taagan ee markay kasoo baxaana moolasha soomaalida taagan ayaa naagahooda dhex taaganay walaalo meeshaan ku codeeyo aniga dadkaygu kasoo baxaan niyuusyada ka daawanayseen whatever ilhaan cumar ay kasoo baxday sida caadiga anigaa u codeeya sirisan ah sida caadiga ah naayaa xaaraan baa ilmahooda lagu koriyaa naagaha soomaalida ayagoo la qabo nimankooda taraagii saaran yihiin ayay daykeer dalbadaan ayay dhahaan separation baanay ayay dhahaan waan silicsanay ayay dhahaan waan rafaadsanay naa ilmahooda telefoonno ayagoo kaga jiraan iskuul baan aadaynaa sidan baa jirta maxay baa jira inta balaayo lagu soo badanaaya naagaha soomaalida ee nimanka maanta haystaa eela waana la qabaayo niman haystaa waa maray taraag saarayin 6 biloodna taraag bay ku maqnaadaan 6 biloodna naagay kasoo waxaystaan oo meelaha kale ku maqayin 6 biloodna waxaan ku dhahay kaman coinsa ayay naaga Soomaaliyeed ku bixiyaan horta u diraan oo naagaha la qabo eela maanta waana la qabaa guryaha waxay ku joogaan lacag ayay ku joogaan iyo kira laga bixiyo naagaan shaqaysan karin gaadhi wadi karin nolol ku noolayn ilmaheeda wadi karin difaaci karin ayaa horta la qabaa oo maanta meher ku xiran iyo guri dhex fadhido weli dhalaysa aniga aan ka hadlo waxaad ka hadasheen naag shaqaysanaysa iyo gabadha taraaga saaranaya naag lacag samaynaysa naaya ninkan ku indha furtay ee anoo high school ku jira aanu isbaranay I love you too siday Soomaali isku guursan jireen 2 bilood iyadoo ka soo wareegin aanu isjeclaanay isguursanay eenu isku fariisanay ayaa ilmo xalaal ay inta iga dhalay uu 3 qurux badan oo adduunyadan dadka ugu qiimaha badan ee Soomaali quruxdooda maanta haddii halkaa la soo bandhigo ugu qiimaha badan iga dhalay ayaa markaan isfahm weyneen arkay sheekada halkay u socotay iyo halkay ku socotana aanday inaadeerow wabilaahi tawfiiq nayaa 8 sano ayaa kasoo wareegtay welina nin umaan gocan kumana sii socdo umana jeedo nin dambe inaan guursado aanu qabiilada Soomaalida ma qaybiyo warshadii ilmaha qaybinaysa berintigaraynaysa ma ihi warshadaas aniga iyo ukumahaas dhabarkayga ku jira suu ilaahay iiga adag yahay ayaan uga adagahay abiyusna uma dul qaadan karo waxaan ku dhahay afqabashana uma dul qaadan karo dawlad lagu kala dhuuntana uma dul qaadan karo warqadahaygana halkaas haddii maanta ba la yidhaha warqadiyo ilmiya dhalashiya adduun aa lasoo dhigayay la yidhaaha lasoo dhigo hal maalin child support kumaanan dalcin oo maan dhin hala iiga soo jaro oon kamaan dalbanine awlaadaydu anay dhabarkaas ii saaran yihiin the last 8 years naya sharootee weliba sax warqadaydiina isagaa haysta hal maalin masaajidna maan aadin Soomaalina kamaan dalban aabana umaan codsan walaalna umaan codsan waxaan dhahay walaalasayna isku jeclaanay aynu isku dalbanay wadnayaashayna isku raacinay awlaada ilaahay inoo kala siiyey ayaynu ku kala qabnay warqadu halkaas bay naga joogaysaa ma garatay naagaha Soomaalidu naagaha intay mid dhalaan nin kala codsada mid dhalaan mid kala codsada allan gabdhaha Soomaaliyeed kama weeline taraag bay koraan way shaqaystaan jeeg baan sameynaa lacag baan sameynaa naag ilaahay ni Soomaaliyo liita oo waxaan ku dhahay maalina social media naga soo duuba haddaan shukaansanana na keena haddaan kaamar u furanana na keena naa dadku way saaminaan
oo way giftigaado ii furan yahay libaaxan isguursadaan kuu soo diri lahay libaax wallaahi ku soco dadku inaad way isguursadaan oo way galmud iimaanka allah kaa is-aaminaan qaaday oo libaaxna way kaama rabtee ishukaansadaan oo waxaan ku dhahay way iskasbadaan naa iimaanka laakiin iga waxa qaadin la acuudu bilaa min arkay shaytaan rajiime waxa la arkay telegram gabdho la soo haye dhigay iska oo soo kuwii iska wax soo dhiib sug ra'yiga soo sug koob xabiibti waan soo soo dhiibay wareeji waan soo soo dhiibayaa wareeji gabdho kalaa meesha saarane sug inaad deeraha soo degdegin nin baad meesha u saarantay adu naya nin baa tahay haddaa maalin fiiri kale markay gabar hadasho waa inaa ani hadlaa an fortiga dhiibaa sug dee ku adaa sug saabsan walaal hadlayaba laakiin ku sug dhigee sug sug samir walaal darana sug qaad dumaashadayna kaarkii baa ka dhumay qaad taraag bay wadaa ku soco laakiin soo kookoob de walaal tv lama dhegeyd soo lama daawan koobaya kare naya Haye. haddaan shukaansano haddaan guursano haddaan u dhalno haddaan awlaad qurux badan oo ilaahay adduunyada gabdhaha soomaaliyeed social media markaad saas u marto ilmaha ugu qiimaha badan bay adduunyada keenaane ugu quruxda badan ee ugu dharka lebiska badan naya maalin kasta tv bay saas u keenaan haddii la qabana way duubaan haddii la shukaansadana way duubaan haddii la salaamana way duubaan nimanka soomaaliyeed kaamara kasoo horeyso horta kaamaru aqligoodii noqday iyo naag soomaaliyeed see loogu dhidhiyaya naa maantaanu taaganay 2023 baa lasii galayaa lacagna waan haysanaa hantina waan haysanaa bahalkayagiina waan haysanaa awlaad qiimo badanna waan ka haysanaa nin soomaaliyeed annaga intaanu dawlad u aabiyuusana isagoo taraag saaran oo thousands of dollars samaynaya ma dhahayno dawladey ninkii oo halkaas iisoo korayo sariirtayda saaran ayaanu sabareed ka nahaye soo caawiya gabdhaha soomaaliyeed baa laga waayey 85% bay marayaane inta daalanee sanad kasta uuraysanaysayna kasoo hoos baxaanu idin leenaho ber awlaadan sida kombiyuutarka libaaxadda adu maxaa usoo ayaa maalin dhexgalgalaysaa kasta sugbal naa anu kaman anigu ma akrinayo mana jeedo mana akriyo anu comment dadka cidna cilan kuma soo ma qoran oo hadalkii fadhiso haddaayay sheegaysaa gabadhay ku soco haye ma waxa soo dhamaysa weeyaan marka nimankan haddaba ciilaneho maya iyo rafaadka iyo silaca iyo diracan dilaacsan iyo calooshan weyn iyo kelyahan weyn iyo dabada ballaaran iyo hooga laga sheegayaa waa naagaha la qabo ee naagaha single motherka iyagoo ilmo haysto 5 haysto 4 haysto 10 haysto 8 haysto 9 hadda dumarkii haysta waad kala saartay laakiin guryahooda adu la inaad rabo dumar oo in dhan la u hadashay imaado dumarkii waad kala saartay anu dumar ma hadlayo dhinac kasta ayaan ka taabanayaa ragna waan taabanayaa dumarka dayacan ee hoogan ee xishmad darrada nagu riday uu diracoodu jeexan yahay aan qabaysan ilmaha ku rafaadsan dheebarka bedelaya silicsan ayuu qarinaya ee dawladda ilmahoodu xaaraantan ayaa maalin kasta ilmaha la yidhaahdaa wuu halaabay ilmuu anu dilay jadwalka 15 ma sano fahamsansa xashiishad nuugayaan rafaadsan naya xaaraantaad u horseedaysaan naagaha la qabow nimankiina isku soo qora oo waxaad dhahdaa ninkan baa naga dhalay oo shaqaysta lacagtiina dawladaha u qora xaaraantu gaalna kuma waajibto muslimna kuma waajibto 10 marna kitaabku wuu idinku sheegaye naagaha la qabow walaalayaal ilmihiina soo diiwaangeliyo waxaad dhahdaan nimankan ayaana qabo ilmaha naga dhalay oo lacagta maa samaynaa waana ka baxay naa ilmihiina korsada waad sanaynaa maadsantahay iyo muud ilmihiina xajisa marka korsada qoraxay muudkaa galhay soo bax degan warbadanay ku socaadna aan bbc iska dhegaysanay fiiri gabar kale si laba gabdhaa hal mar u jawaabaa marka malyuun ay ku soco walaalo malyuun ha ku socoto malyuun ay ku socaynaa deerqaal ها mahadsantiin lainaan intan lagu malyuunin kala haray adeere waa ku salaamayaa waa kugu waa xada kaa salaanta qaaday cunto kaa qaaday kulligiina waa niiga qaaday maasha allah kulligiina waa meelo badan taabayaa meelo badan noo taabo may mayl waa baa saas isu jarayaaye rag waa saas meesha ma ahan ragga naag keliyaan difaacina ama ragga keliyaan eryanayna maaha siday wax u jiraan waa inaan ka hadalnaa dhan kastana malyuune maadaama rufiyaanta qolka ah waxaa kaa dabageynaya inuu nin imaado u dhahay naagaha soomaaliyeed oo la qabo wada cajiin waaye basalaa kasoo urayso inuu dhahay kugu raacina naftiis waa libaaxada bes waa saameeya haa ku odhanin naftiis waa soco iibsigaa waa kuwa la malay qabana waay singalka ma dhihin yaa ku soco okay libaaxada dumaashi aan kala xishoonaya wiilku saa mu maya hadda odhan waa runteed wixii dhaafay may la may sheega may waa mu shakiir odhan adma sidaas adiga dumaashi basalaa kasoo urayso mu u dhahay odhan mu dee odhan shakiir dee adiga dumaashi isoo iska kaba jira ilaaha ka isoo yaabta kaba wixii dumaashi dhaafay anima wuxuu joogin yidhi markaas aa malyuune imaaday wuxuu yidhi wiilku dhegayso wiilku wuxuu yidhi
haddii aadna soo jiidan lahaydeen buu yidhi ood wax noo samayn lahaydeen laakiin haddaan u imaado buu gurigii gabadhaydii oo maaragtay basal iyo xawaaji iyo gurigii iyo calshaan aan nadiif ahayn buu yidhi haddaan u imaado gabadhaydii oo labisan oo dirac dhan oo khafiifsan qalbigii kalgacaylkay u kala roon tahay buu yidhi gabdhahan cadhaysanee singal maadarka iska daya ku soco okay taasaan marka ka bilaabaa naftirkeeda anoo soo koobay ayada naftirkeeda ka bilaabaa anoo soo koobay degana daabata wiilka wuxuu dhahay ma caayin giftiyaan usoo diraayay qoraalka kor ugu noqo raalli ha iga ahaato ayadaa wax qaldan akhrisay gift buu soo diray qoraalka waan arkay laakiin iska wada boodayaan ku soco walaalay ina rooblaan marka waxaan ka bilaabaaba taa hadda ii dhiibteen wiilka maadaama uu dhahay naagaha Soomaalida cajiin looshin waaye guriga haddaa imaano micnaha waxna soo jiidanaya malahan iyadoo saan uu dhahan ka bilaabaa horta marka uu rabo nin Soomaali inuu asaga naagtan gabadhan Soomaaliyeed ee ayadoo 20 jir uu duurkan ka keensaday uu guursaday hadii uu rabo inay asaga u noolaato oo hadii ay isqurxinayso asaga isku qarxiso oo hadii ay cajiinka iska dhigayso dartiis isaga dhigto oo hadii qabaysanayso ay dartiis u qabaysato oo hadii ay iskreemeynayso dartiis u kareemaysto hadii uu aamino wuu ku qaldan yahay because of shala gabadhan oo nool oo guursaday 20 jir maantana way noolaanaysaa asaga la noolaanay berrina way noolaanaysaa kaligeed haday noqoto haday nolosha isla dhameeyso waa soo waxaaba tootale qalada qofka inuu aamino qofkaas haduu ii sameeyo saas sharuud inuu kaga dhigo condition naagta Soomaalida waa wasaq waasaan maxaa la iyadoo cajiin lan guriga imaana soo jiidasho male asaga horta jaceelka ma wuxuu ku imaadaa shakhsiyan wax loo jeclaada mise qofka wuxuu ku sameeyaa ani midaan la yaabanahay waa taas horta nimanka Soomaalida marka qaladkaas ayaga ma saaray waxaa saara caasha faarax naftirkeeda xaliimooyinka sababtoo xaliimo Soomaali most of all they believe waxay aaminsan yihiinbo in oo ay u nooshaaneen waxa arkay gabadha waxay ku leedahay ninka cuntadaas macaan loo kariyaa kaama tagay ninka sariirta saas loogu galaa kaama tagay ninka waa la isku qurxiyaa kaama tagay aniga kaama tagay lama ku noolaana adduunka inta jirto ilaahay ma wuxuu ii abuuray ninkan kaama tagay kan sameey sariirta gobolka ma tagaayo iskareem ismaris caday kaama tagaayo cunto macaan u kari ninka kaama tagaayo musqusha gal ninka kaama tagaayo ooy ninka kaama tagaayo aniga ma microphone aan mar walba u ahaana waxaan xun oo asagaba ninkan uu u baahan yahay dareenka igu jiro ku jiro nafta igu jirto waa artaysay meel ku malafsanaya way naga dareen badan yihiin way naga kacsi badan yihiin nolosha rabna way rabaan ilmaha rabna way rabaan guriga rabna way rabaan waay aniga kaligay liigu abuse inaan nin u noolahay marka nimanka inay aaminaan gabadha inay saas ay asaga u nooshahay ay asaga isku qurxiso asaga wax kasta u sameeyso kuma qaldana